وزير ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo biyaha Cabdisalaan Maxamed Xasan suduwaha gobolka xubnaha ka tirsan xidhiga wasiirku inoo furi doono waxaan aad u jecelahay inaan yar ka horreysiyo inay Boorama u baahan tahay biyo aad fara badan dadkuna kordhayo magaaladuna aad u ballaaranayso halkan marka waxay ka mid tahay meelaha aan biyaha sahanka ku helay ceelkii horreeyay baan ka qodnay ceelkii labaad baan markaa doonaynaa inaan imika ka qodno waxaan jecelahay inaan horta marka hore ku soo dhaweeyo dhagax iyadoon ilaahay ka rajeynayno dhulka hoostiisa waxa ku jira inaan ogeyn inuu haddana nagu guulaysiiyo oo ay dadku ka intifaacaan waxay ahayd kolley ceelkan wuxuu ka mid ahaa qorshaha iyaga ku saabsan haraad la dagaalanka mandiqada taas oo aan in badan ku dadaalaynay markaasi bal inay dadku say biyo u heli lahaayeen codsiyaal fara badan ay ka yimaadaan dadka deegaanka iyo ururada bulshada ee markaasi ka socda iyo ka yimaadaan marka nasiib waxa uu yeelatay ceelkan oo aan rabno laba faa'iido inuu keeno dadka deegaanka inay ka faa'iideystaan iyaga xoolahoodu ay ka faa'iideystaan reer miyiga degan meesha ay ka faa'iideystaan wixii kale ee soo harana ay magaaladu ka faa'iideysato markaas ayaan rajeynaynaa kolley waxaan ku tala jirnaa in sida ugu dhaqso badan haddii ilaahay yiraahdo aan u bilowno wixii budget aan ugu tala galnay annaga wax naga maqani ma jirto laakiin wixii facilities ahaa ama riig iyo ama qabanqaabadii xaggii dawladda iyo ku saabsanaa shirkadii biyaha maamuleysay ee magaalada Boorama kalihaatay iyaguna inay naga caawiyaan sidii aan si dhaqso ugu bilaabi lahayn uma rajeynayaa haddii ilaahay yiraahdo aad baad maasantiin waxaan maanta halkan isugu nimid inaanu dhagax dhigno ceel biyood laga qodi doono halkan aan taaganahay oo maxaan ku raahdaa degmada Boorama ee gobolka Awdal runtii waxa weeye ceel biyoodkaas ku yimid talab ay bulshada reer Boorama iyagu iskood soo abaabuleen ay ka dalbadeen maxaan ku raahdaa hay'adaha khayriga marka ay marka aqbashay ama ay maxaan ku raahdaa dalabkoodii maxaan ku raahdaa dhageysatay hay'adda maxaan ku raahdaa Kuwait Joint Relief Committee oo hadda halka nagala jooga Umar Barkhadlo oo ah wakiilka hay'adda dalka Somaliland runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo markaad eegtid maxaan ku raahdaa baahida biyood oo guud ahaan dalka ka jirta gaar ahaanna labadii maalmood aan hadda Boorama joogay oo aan maxaan ku raahdaa shaqada u joogay maxaan ku raahdaa ii muuqanaysay inay maxaan ku raahdaa runtii biyo la'aan jirto hadda dadku biyo waa helaan laakiin biyo aad iyo aad maaragtay loogu tashan karo oo mustaqbal fog lagu tashan karo Boorama ma leh ceelkan marka waxaan rajeynaynaa inuu maaragtay wax ku kordhiyo systemka hadda biyaha ka jira oo runtii system aad iyo aad aan maaragtay anigu runtii farxad geliyay oo company-ga maaragtay gacanta ku haya shaaba biyaha Boorama gacanta ku haya ay iyagu dadaal aad iyo aad u badan sameeyeen ay iskood maaragtay shaqo badan oo muuqata oo runtii aan la inkiri karin ay geliyeen maxaan ku raahdaa biyaha Boorama marka waxaan rajeynaynaa inuu ceelka noqdo mid wax ku kordhiya isaguna oo maxaan ku raahdaa biyaha Boorama wax ka tara inuu noqdaan rajeynaynaa waxa mahadsan bacdallahi hay'adda Kuwait Joint Relief Committee oo runtii iyaga dalabkii bulshada dhageysatay oo ka jawaabtay Umar Barkhadlo waxaan ka codsanaynaa in maaragtay maanta waa ceel baan filayaa dalka oo dhan waa idin baahan yahay bacawnillahi Booramana ceelkiiliya maaragtay waad mahadsantihiin su'aalaha waxay tiraahdaa ama lama dhudhumiyo oo wixii lagu siiyo lama cabiro waxaan filaynaa inaad mid kale iyo laba kale iyo saddex kale iyo inta aad heli kardhaanba aad maaragtay aad ku soo kordhisaan deegaanka iyo guud ahaan dalkaba aad iyo aad baan kaga codsanaynaa waana ku mahadsantihiin waxaan leenahay cidii khayrka la baxdayna ilaahay idankii inay kolba ciwadkeeda adduunka akhriba heli doonaan baan rajeynaynaa aad iyo aad baan maaragtay idinku mahad celinaynaa waxaan kaloon u mahad celinayaa madaxda hadeer heer gobol iyo heer maaragtay dawlad hoosaba maaragtay nala joogta meesha oo maxaan ku raahdaa dhagax dhigan nagala qayb gashay iyo guud ahaan bulshada reer Awdal ee degmada Boorama aad iyo aad baan u salaamayaa. Assalaamu calaykum.